kii yaraana uu ka baqayo inuu isagu isdilo aakhirka imika inuu isagu isdilo ku dhow yahay haddii isla lagu sii wado ninkan waa shaydaan wallaahi ina been ku sheegin waxaan ku sheegay arinima soo qaraacay nimo ay wax isku yimid soo qaraaco daarood baan u malaynaya walaal bay dhahdeen ininku haddaad wariyaaltiin ka daaya wiilka dadka hablaha aad baraysiin habla bari maanta rajo ka sugayo leh wiilka isku tuura waa kan abwaaniya waxa ku qorqortay yaad ininkii marka habliiba cabsi sii qaadayo gabadh kasta waxbuu ka duubaya inka fiimo wuxuu ka duubay iyadoo mabakha ku jirto qaawan haddii wixii laga aamusi lahaa saw lama odhanayo hablo badan oo yar yara ayaa rajo ka sugi lahaa laakiin laydhkii marka adood ku shito wariyaha ugu weynaa maxay dadkii samaynayaan horta ninkan waa shaydaan looma labeeniyo reemudugu waxay dhahaan shaydaan looma labeeniyo ninkan waa shaydaan ninkan markuu gabadha sida xun u galay isagoo stress hayo inuu isdilo rabo waxa iga marqaatiya gabadha wariyaha ilaado kaltuun muuse ee habar yoonista ee bahar dhulbahanta ah iyo gabadha wariyaha ilaado eglan show ee dhulbahanta ah ayaan u diray way dejiyeen xaafad gabadha dhulbahantaha la geeyey halkan deg baa la yidhi waxaa la yidhahaa isdilin wuxuu rabo inuu sun caabo ama dabaq iska tuuro hay waa maaweelinay shiino culay iyo dadkii oo youtuberska ahay ee ku shidaayay iyo wariyaashiyaan ka joojiyey waxaan kuri iska daayay ninka qalad uu galaa bini'aadanka gabadha uu xallin doonaa ka daaya tooshka ku shidaysaan gurigii annaga aan geynay ayuu wuxuu gabadh yar u joogto 17 jir oo ku geeyey oo gabadhii aan u geynan dhahna guriga ku nool qolka si ayuu gabadheedii ku ortay hay wixii ka dambeeyay talaabto qaado waa dhiiqo naagahana waa taqaan inuu joogo ee isla dhaxaya jaamkii balaad cunay deeniman sirta ku fiicnayn waxba turi mayaan meeshan adduun aakhir sabeel joogo wax la soo qarin mayo naagta habeenkaas dugo weyso subaxdii soo fariisanaysa TikTok waxay dhahaysaa waxba ima qaban odagaan shaqada qaranka ma qaban karo hay sultan ma hadlaa hal mar waan hadlaysaa laakiin in adeertiiba ma sheegto wallahi saantir waxay tiri markuu sariirta ibaado uu fikiraya walwali walbahaar buu ku nool yahay waliba gabadha aan hayo dhamaysta ku siinaya markuna laakiin gabadh in adeertiiba wallahi ka duubtay oo tiri gabadh kale ahaa may waxa loo diray gabadh ciisaan u jeedaa waa loo diray gabadha inuu shakaasado doonayay war midda kii hayo codkeedii hadda ma ku soo diray hanishiran haya codkeedii ma gabadha tiri barankii baa ahayd ee u qabay hana shiro dhahayso siftiisa dhan banaanka soo dhigaya qolka cunugiga la seexday waxba igama qaban karo uu igu dul fikiraya nafta ay haysa ya nin in noqon ma ka qaba gabadha aan ku sheegay kule ay warista gabadha yar ciise magaceed baa xubi baa la yidhaa gabadhaas uu doonayay sino ugu tago uu la baashaalo inta badan dumarka tiiba waxay ku tiri taadii baad wax ka qaban weysay ani maxaad qaban kartaa waliba aniga waxay tiri hilibka ceelinka cunaha dir dhawaan ku dhasho kuwa ku kala jibinay marka واحد يوريا والنكان مجرتين بو عينيا دول بحطو عينيا دشش لو عينيا ogaadinki buu caaya dadkoodii gabdhahoodii wiilashoodu caaya kayso isku qaadaya culuga jow aaday saadaq buu aaday MJ iyo Tiki buu caaya dadkoo dhan buu wada caaya ninkaan ma waalan asaga meeqa furan buu furayaa dagaala imisa meelood buu weeraray markaas isagoo qalbi ka ooyay ayuu isku siinaya nin wasiiro soo qaata maan soo leeyahay kaysa jaamac hooyisu qabaa kaysa jaamac hooyisu u qabaa ninka jeerka Cabdi Shashaan wariyaha caana wey waa cunug yare oo jeero joogre ninkan waa qalbigu ka ooyaya afkana ka qoslaya ka war ma waa qalad kulay qodda loo qof way isguursan karaan walaalayaal laakiin kaysa dadka markay isku cadhoodaan hooyadii ay ku cararayaan qalad way walaalayaal gabar fiican oo gabawey halkan bombi digata yaqaane may dadku waan ka yaabay sababta isla markii way kula carareen hooyada jareer baa qaba taasay isaguna nafta ka baxayso oo xanaaqaya laakiin dadka badawa waxa fiican hooyada isaga jeerta goormay ay noqoto jeerta dad Soomaaliyeed ma jeerta gaarada dumarkeenu jareer ma guursadaan Soomaal daahirneeyo ay marka gabdhaha sheekay waa ka baxay gabdhaha sheekay gabdhaha bintu soo dhawow in adeer waandho waxay topic dheer baan ugu dul qabsateen sheekh qabiilkaaga sheeg wala war ma jeertaan baan ahay in adeero soo dhawow ma jeertaan ninkan aad ka hadlaysiin baan la yaabanahay ma garatay soo dhawow waa useless weeyaan stupid weeyaan diin iyo iimaan toona ma lahan dhaqanna ma lahan
waxaan la yaabanahay ilaa ina fahiimo dhaqan male ilaa hadda waxaan la yaabanahay gabadhu markay dhaqaaqdaba kaamirada uu la daba taagan yahay ayadu si u fahmi weyd inuu duubayo yacni qof moobeelka gacan mise kaamira wuxuu ku qarsaday maradiisa ma fahmi karo markay meel aadaba qof weyn uu qabo oo xaaskiisa ah oo noloshan gelisay anagu waa naqaanaa gaalka ayuu ku dayacnaa markii dambe waxaa la keenay South Africa meelahaas buu ku dayacnaa Kenya hadda caadi buu u waashay hadba meel buu isku waabayaa ninkaana dhaqankan duubitaanka weligiisu yaqaan gabadhu in adeernimo iyo jacayl iyo waxbay uga qalqaleynaysay waa nin waashay haddana waxa u maleynaya inaysan deynayn baa arrinkan u maleynaya because of wixii hore oo dhan inays caddayn saxa ku hayn baa laga yaabaa laakiin tan caddayn saxay ku haysaa kaamirada inuu qofka duubaya isaga yahay qof kasta iyo dowladda meeshii la geeyaba waa laga arkayaa ingiriiskana arrimaha noocaana maxkamaddu waaba firiiba waayo gabdho badan baa isku dilay sida la sheegay oo qofku markuu mawduucan oo kale dadka ku dacweynayo bilaash baa ku ablay garaysanaysaa oo mawduucaagan lagugu qaadaya ilaa maanta ilaa shalay bay soo shaacbaxday dee qoftaana waa qof wax baratay jaamacaddii la foolo ee Soomaaliya ka soo baxday say sheegtay ingiriiska 30 sano ku nooleed wax fiican bay baratay qof maxaan ku dhahay wadanka kala taqaana oo hal ilmo haysato oo maalna haysato weeyaan ninkan doqonka oo markuu sheekaynayo si uu dumarka u sheekaynaya oo waashay marihii dhigay waxa rajaynaya inay xabsiga meesha ugu xun ku hubsato ma fahanti iimaanna ma lahan Soomaalnimana ma yaqaan xaasna ma yaqaan weligiis aliis baanu arki jiray Facebook igu jiray meel buu igu jiray wuxuu doonuu ku hadli jiray iminkana uu la soo shaacbaxay daaroodkii lacagta siin jirayoo ka nixnixi jirayoo dee nin fiican buu isaga dhigay markuu oohinaya waxaa la ninka gabadha isku oohinaya waa nin fiican hadda wejigiisa dhabtaa baa la helay maruu gabar yaroo 15 jira dhaho ma kuu imaaday xaaraan ma kugu bahalkeeya maruu xaaskiisii isagii ay TikTok isku jijiitaan waa bahalkii maruu iminka xaaskiisii oo intaasoo sano ka hor isqabeen uu maanta dib usoo shaaxsaara fiidiyoyadeeda uu soo fasaxo waa bilaa dhaqan in adeer dhaqanna male hooyadiisu caynayay hooyadiis reerkay ka dhalatay buu hadda wuxuu lahaa saacado ka hor waxbaa maxaan ku dhahay waxbaa intaa kala laala ego reerkaas naagaha ka dhashay waa saas hata hooyadiisa ka dhalatay dadku sheegaya ma fahant marka wiilku wuu waashay waxaan rajaynayaa in xabsi loogu dambaysiyo taariikhdiisa oo dhan iyo noloshiisa oo dhan bila akhlaaq stupid hal su'aal weydiinaya idinka dumarkiina kamarada marka la niga duubayo seed ku ogaan kari weydaan ilaa qofkii uu nila jooga kamarada ba niga duubaya seed ku ma ininka ayaa kamarada jecel niga duubo in adeer macaan kaamiradu waaba kala duwan tahay kaamira meel la isugu qariyo la isugu dhajiyo waxba la arki jiray ninkan gabadha wuu la daba kacaya si ku fahmi weeyda baa la yaabanayba dumarkii wax bartay oo iyagoo Yurub jooga saa loo bahdilayo gabdhii masaakiinta ah oo aqoon badan lahayn oo qaarkood Afrika waxa lagu bartaa laakiin iyagoo wax baran Afrika joogay maxaa lagu sameyn karaa oo yaryariiska ah maamada weyn oo cilmi baratay maxaan ku sharci baratay wadanka 40 sano joogtay qabiil u baahnayn xuquuqdeeda 1 second ku soo dhacsan karta baa fahmi weeydan wax laga duubayo marka in adeer anaguna camera iskuma aan dhigno deen anagu dumar waxa iska naa dumarku badana sometimes dumarku dhan isku mid ma ahane dee anagu ma fahmi karo sababaha lagu duubo qofku waa inuu 10 talaabo markuu dago 20 talaabo adigi kartaa laakiin iska amar qoran weeye sometimes gabar yar oo khiyaamen anu waan garan karaa laakiin ninkan gabadhan kaamirada la daba socdo sida ay ilaahay ka wada daaro ma ismu gowey daarood ma ka wada ana halkaas rabaa inaan ogaado tee waxaan miyaan garanayaa ma ismu gowey soo ma ahan managa naqaan idinku kana hawiyu kana mas'uuliyiin soo ma ex daarood ma ismooge ma leelka siyaan la ceebaysan ma ismuga meel uu galay ilaa hadda lama hayo leelka saxaas waxa la dhahaa waxay galaan hawiya laakiin ma ismuga cid uu galay lama bayaqaanba waaba buukumayaal reer buukumayaal ba maqli jiray ay ma ismooge nimanka daga soo maaha goldago war leelka saadaga leelka si oo la isku haystinay daaroodii inaysa ahayn hadda ma ismuguba sii noqday bad ma ismuga yuu galaa ma oramayba militariyaan ba hatta daaroodkiina ma ismooga daarood baan u maleynaya ma aha leelka saa loo marin jiray leelka siiba awalba shaki ku jiray haddana dad kale oo aan garanayno kabtan ayuu baaba gebigiisa wallahi dhagtayda maalin kabtan ayuu isku dhaceen ba Facebook iigu horeysay ma ismuga hadda iigu xigta TikTok ma garatay meel ay galaan awa alla lama yaqaano daaroodna kuma daahiro ninkay galaan dadka wax soo qoraya xawaad lay galaan ma ilaalka saha anaga ma ila Soomaali wiilka saha xawaad la laakiin ismuga ma aha leelka see أنا لكن قبل السهام كا أقارنا سهام الله شيء كستوي يقول ترى أنا وحنا للكسة قلقة السن أو عرض للكسان هيتين مرجع أنا قال للكسة وقرباشير لكن قبل أسان صاحبنا مركي نقطة وسكا عامصو وهي كده بيك ما هذا لما يقانا وحيين
in la bartaan rajeynaya insha allah majartaanku aad bay u calool jilicsan moogta sabrada waxa la kacay yaa ku dila maanta waa daarood waa reer hebelna goobta daarood noqdo ninkii daqiiqada ka hor caynay goobta daarood noqdo ma la ismooge waa niman daarooda laakiin waxay la dhasheen baa la nimanka leen ka soo la dhasheen oo waa sida caynaya ninka soo wiisku caynaya ifaansi ninka soo wiisku caynaya waa daarood yaan marinay ma la ismooge waa fanis diini iimaan toona ma lahan dhaqan ma akhlaaqna ma leh adiga hooyada ma caynay meel suuga iga dhaafa gabar saaxiibtay laakiin ninkan hooyadii soo caayaya hooyaday aniga abtiyaashay maanta iska dhaaf aniga maanta kuwa hooyaday la dhashay ku hooyada ah ayaan wax ka sheegi karin maanta reed ma aadi karo cali siciid ma aadi karo maanta maxamed muuse ma aadi karo waxba kama sheegi karo waa abtiyaashay sidee buu isaga u aadi karaa maanta ugu dhici karaa inuu mataqaanaa ilaahay kuma soo diiday ma jeerteeno abtiyaashiisa u caayo qofku dhaqan